waa marxaladaha nolosha middood ruux kasta oo geeri degdeg ah ka nabad galaa waa marxalad uu filanayo oo uu inuu gaaro loogu duceeyo inuu gudbana looga duceeyo waa marxalad laga sii walwalo markii lagu sugan yahayna dhammaadkeeda laga argagaxo marxaladda xigta oo aan la jeclayn weeye waxaa argagaxa duqa ama duqda ku abuuraya waa marxaladda geerida nasashada dheer ee lagu tilmaami karo wuxuuna siinaa jacayl qabo midda uu aadanuhu ugu nacab yahay dadka niyadda wanaagsani waxay gabowga ku magacaabaan marxaladdii fakarka marxaladdii dib isu xisaabinta marxaladdii waxgarashada bisil kuwa sida kale wax u eegaana waxay ku sheegaan marxaladdii itaal darrada marxaladdii shaqogabnimada marxaladdii fadhiga daalka leh marxaladdii geeridu ku xigtay iyo magacyo kale oo muujinaya waxay dadku ka qabaan marxaladdaas iyada ah ee in la gaaro iyo inaan la gaarinba mar la wada jecel yahay magac kastaba ha la siiye gabowgu waa marxalad ka duwan marxaladaha nolosha ee uu qofku soo maro wuxuu waxyeello gaarsiiyaa dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee xubnaha jirka iyo shaqooyinka maskaxda ee ay xusuusta iyo wax kala soocu u wen yihiin waxaa qofka gabooba hareerihiisa ku bata dhallinyaro uu afgaran waayo waxaana ku yaraada da'da uu ku abtirsado ee ay fiicnaan lahayd inay gabaad isu noqdaan waxyaalaha oo lagu daray dhibaatooyin uu qofkii qabaa ogaan karo ayaa daraaddood gabowga loo necab yahay oo looga walwalaa gabowgu waa marxalad markii la gaaro had iyo goor laga cawdo oo qof kasta rag iyo dumar labadaba u daran siiba waayadii hore ee daawada iyo daryeelka caafimaad aan sida maanta loo heli jirin ruuxii coobis noqdaana uu ku raagi jiray waab uu geediga aakhiro ku sugo dalkeenna beryo sii horreeyey ilaa maantadan la joogo qofkii 60 kor u dhaafa waxaa loo qaadan jiray mid caleentiisii cirka ka soo laalaado oo berri ama saa dambe mid ahaan axantiisa la cuni doono khaatumada allow kuu suubi ayay ahaan jirtay ducada loo akhriyaa kolkii lasoo booqdo inkastoo aan aadanuhu nafta ka samrin ilaa ay ka dhacdo haddana jirro iyo gabow qofkii ay isugu darmaani wuxuu isu qaataa inuu reer aakhiraad yahay qofkaas isaga ahi hadduu bacaska iyo qiyaamaha rumaysan yahay wuxuu weheshadaa tusbaxa iyo weesada wuxuuna badiyaa waanada iyo ka sheekaynta hebeladii iyo waayadii uu soo maray waayadaa iyo hebeladaa oo uu inta badan u arko inay ka fiican yihiin waayada uu markaa ku sugan yahay iyo hebelada agagaarkiisa ka muuqda rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi ayaa ugu badan maahmaahaha uu wariyo sidaa kolka uu leeyahayna isuma haysto inaba ha la ekaatee inuu ku dambaabayo maxaa yeelay raggaas hore iyo hadalkiisuba waxay u matalayaan cadcartii dhallinyaranimo kaftankii maanla'aaneed xudxudadii dumarka iyo u dhagraare intii macaansiga lahayd ee codkooda miyirka qaadka leh waxa la yidhi doqonnimo uusan u dhalan ayuu gabowgu qofka u keenaa nin soomaaliyeed oo aad u cimriyey baa laga sheegay inuu yidhi ileen ilaahuw cimrigayga dheeree intaan lahaa doqonnimo unbaan u alla baryaayey rag badan oo waran iyo weerba lagaga dambayn jiray ayuu gabowgu soo riday oo carruurnimo u celiyey dabadeedna dhallinyaro xilkas ah iyo kuwo aan xilkas ahayniba wuursi ku dhaafeen markay gabax yidhaahdaan dad yar baa waxay raggaasi gudi jireen ama geli jireen dib u fiiriya daryeelka ay helaanna in badan buu ka yaraadaa midka ay u baahi qabaan xaajadii ku dhaaftaba mid baa lagu xasuustaaye xalay iyo wixii maanta dhacay waaba kala xaale xallad lagu kulmaba tii kalaa xarafka sii dheere intaad xaami tahay buu nafluhu kuu xabiib yahaye kol hadday xagluhu kaa dabcaan xiisahaa dhimay rag badan oo wada door ahaa ayaa gabowgu geyeysiiyey inay kor tegi waayaan oo muluqyada ooga oo dabacay ku jir rabeen aqallada dhexdooda inay ku dana bogtaan dabadeedna dad kala daaye kuway dhaleena jeclaysteen maalin aad u dhow inay xayun baaqin ku qaadaan soomaalidii hore ragga caynkaa ku dambeeya qaarkoodii hibada u lahaa waxay marin jireen maansooyin calaacal u badan oo ay dano dhowr ah ka lahan jireen
maansooyinkaasi mar waxay u ahaayeen maaweelo iyo dhaymo nabar waxay isku ilowsiinayeen dhibaatada markaa haysata maxaa yeelay sida uu cilmi nafeedku qabo qofka dhiban waxa u roon waxa haysta intii uu qarsan lahaa inuu ka eed sheegto oo uu daboolka ka qaado midda kale maansooyinkaasi waa naxariis raadis oo qofkaa gaboobay baa raba in cabashada aawadeed wax loogu qabto daryeelkiisana loo dhaga nuglaado midda saddexaadi waxay tahay qofkii oo doonaya inuu dhallinyarada hareerihiisa ka buuxda ka dhaadhiciyo inuu kol danab ahaa sideeda oo kale u xaragoon jiray la tixgelin jiray kobta uu fadhiyo aan si fudud lagu dhaafi jirin haatanna tabarba yaan lagu eexsane uu mudan yahay in talo la weydiiyo maxamed xaashi cabdi wuxuu ka mid ahaa odayadii soomaaliyeed ee sida weyn u cimriyey ha cimriye wuxuu ahaa gabayaa ay tix qurihii naga soo gaadhay gabayadii malahayga badnaa ee isaga la iishay tixdaa oo uu dhibaatooyinka gabowga ka tiriyey dad aan yarayn oo korka qaybsanna aan la kulmay waxay ahayd laba laysku dhaabay iyo waxaan dheeg wiyila qaatay amaan khayli dhoolaha madow gudub ku dhaaraamay dhabareera guureen miyaa laygu wada dhaafay ushaan dhaabin mooyee hubkii ma iska wada dhiibay ma ka dhaxay dhawaaq baxaya iyo dheelmataan gabana dhuuniga isii yahay miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni maxamed allaha u raxmadee wuxuu sheegtay itaaldarro iyo tabarxumo uu gabowgu u soo jiiday meelisyadiisa wuxuu ku bilaabay tilmaan uu ka bixiyey dagaalyahankii uu jeer ahaa iyo siduu u xashaashi jiray kolkuu adduun ahaa ee ay cadcartii dhallinyaranimo ku dhammayd raggii uu awowaha u ahaa iyo dumarkii uu qabayba sida tixda ka muuqata daryeelkiisa way ka cuslaadeen ha yeeshee waxaan filayaa erayadaa kolkii la maqlayba inay arrintii isbeddeshay oo odayga loo jeestay waa male uun keli ah ee waxba ma hubno mala rag waa noolina rag horaaba yidhi waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni carabay isna wuxuu ahaa gabayaa soomaaliyeed oo dhowr goor marxaladda gabowga wax ka tiriyey salaan markay ciradii saabatay raggii ay isku da'aadda ahaayeen markay duul aakhira u bateen ee uu is arkay isagoo dhallinyaro ku dhex jira markuu arkay isaga iyo wad inay kalama maarmaan yihiin intaa oo idil markuu arkay ayuu u leexday dhanka cibaadaysiga iyo u tabaabushaysiga la kulanka eebbe gabayadiisii mid ka mid ah oo waana ahaa wuuna ula jeeday cabdilaahi baashe nin la odhan jiray ayuu qayb ka mid ah kaga hadlay waxa uu gabowgu soo gaarsiiyey iyo waxa u eg wuxuu yidhi dhallinyaro cilmowgaa tashiga carag ka qaadaaya nin cibaaro badan lagu shubay oo caaqilaanahaye calli yahay eradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wad isaariye marka madaxuu cawskay dhigyo cigay lixaadkiiye cadcad waxaan lahaan jiray haddaan ciirayoo dhacaye casho noolba waxaan fiiriyaa curufadaydiiye raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawlka dibadeede calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanne qorraxdoo casar joogtaanahoo ciiri galabkiiye cimrigaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye sidaan cadadka biluhu u tirsaday waa cabsanayaaye maxaad cuni ha joogtee adduun caashaqii dhigaye